isbuuca Soomaalida ayaa saddex jirsaday maanta waxaana uu weli ka soconaya xarunta Oxford House oo ah halkaas sanad walba lagu qabto. haddaba kulan suugaaneedkan ayaa hal abuurayaasha ku soo bandhigaan maansooyin iyo weliba murti aad u qiimo badan. waxaa mar walba soo buux dhaafiya goobta uu kulankan ka soconaya dadweyne aad u fara badan. haddaba sanadkan ayaa waxaa lagu casuumay abwaano caan ah oo dalka Soomaaliya si aad ah looga yaqaan. waxaana ka mid ah Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Axmed Suleymaan Bide, Boon Xirsi iyo weliba fanaanada caanka ahayd waa Aamina Cabdulaahi. kulankan oo maalintiisii saddexaad ay maantu tahay ayaa waxa abwaanadu ay dadka u soo gudbiyeen maansooyin waxtar leh. sidoo kale waxaa jiray abwaano da'yar oo iyana madasha kulanka kaga qayb qaatay suugaantooda. Caashaluul iyo Cabdiraxmaan Abees ayaa ka mid ahaa abwaanadii da'da yaraa oo halkaasi maansooyin ka soo gudbiyey isla markaana dadku ay si aad uga heleen. waxaa jiray iyana qaybo loogu talagalay caruurta oo ay soo bandhigeen macallimiin caruurta afka Soomaaliga bara amaba qoray buugaag laga dheehan karo af Soomaali maadaama la joogo dal shisheeye si caruurta loo baro hingaada iyo weliba qorista iyo akhriska afka Soomaaliga. waxaan ahay dhagdhe had iyo goor dhiilo iyo bilaayuun baan dhigaa dhul nabad loo joogo iyo dhammaan reer soo galaan dhibaato ku biiriyaa maxaa igu maqan dhalaan maxaan dhiigooda jaqay adduun weligay ma dhaqan maxaan inan dhaban lehoo la dhooldhoolinahayo dhigeeda u feedhatiyo hadalka furmi doona falaqada bilaabmi doonta waa la qaadaa dhigi doona aakhirka waxay u baahan tahay inaynu wax ku gabagabayno oo go-aan soo saaro oo meel dhigno haddii maanta aanay haddii la ka dhigo xad ilaa fulintu waqtigeedii horta waa in falaqa jirtaa macna leh dabeedna waa in wax laysku raacay la diiwaan geliyaa meel la dhigaa oo ay gundhig noqotaa oo ta kala timaada markay waqtigeeda gaadho ee tiradii loo baahnaa hesho iyo dareenkii iyo hayarkii la soo dejiyo dadka ay waxu muuqdaan sidaa uu Hadraawi sheegayana ma aha shirkan aynu isugu nimi ama fanaan kaga hadalno ama dhaqan kaga hadalno hadalladu way qaybsan yihiin oo sida iskuulada subjectyada loogu dhigo ama arrimaha kala jaadka ayaa waqtigu u kala qaybsan yahay. haddii dhaqan laga hadlayo dhaqanku uu fara badan yahay, haddii fan laga hadlayo fanku uu fara badan yahay, haddii diin laga hadlayo diintu way fara badan tahay. marka ayaan canshuur ayaa sanad walba iyada xil iska saarta inay soo cazumto abwaano iyo fanaaniin iyagoo weliba ka soo kicitimaan dalkii hooyo. Aamina Muuse Weheliye oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida ayaa iyana goobtaasi tixmaanso ka soo gudbisay iyadoo dadku weliba si aad u jecelaysteen ayaa waxa markii ay dhamaysay sare u istaageen iyagoo u sacabtumayay. hooyo caawintaan ahay tucaburantay baan ahay ciil iyo calooliyow mid la ceegsan baan ahay caruurteeda oo idil tay ku caasisaan ahay cidlagohan mid joogto caymis weyday baan ahay ceebtaan dhacaysay curadadaydu falayaan mid ka caagsan baan ahay da'da lagu cusloobiyo cuti weli anoon noqon calool xumo darteed bay cirra iigu taallaa waan cataabayaa weli haddana caawinaadiyo mid quro i ceensho hooyo way cakirantee warkadaaya cayrsiga ku yiraah ciyaaladan cimrigayba waayay. Atuyoy shegatoy atuyoy alashisheya Somali Week oo sanad walbaana October dabayaaqadeeda halkan lagu qabto ayaa sanadkan waxa ka soo qayb galay fanaaniin aad u qiimo badan iyo waliba abwaano uu ka mid yahay
maxamed ibraahim mursame hadraawi waxaa halkan aan kula kulmay sidaad arkaysaan aamine cabdulaahi oo runtii ah fanaanad aad u qiimo badan oo si aadna loogu sugayey sanadkii lasoo dhaafay aamine ka waran munaasabadan Somali Week ee sanadkan aad ka soo qayb gashay seebaad u aragtaa aad bay wanaagsan tahay yacnaha waa meel aadna u qurux badan sida loo soo qaban qaabiyana aad bay u fiican tahay aamine cabdulaahi oo ka mid ah fanaaniinta ka soo qayb galay munaasabadan Somali Week ayaa iyadu soo bandhigi doonto sida ay sheegtaba fankeeda iyo waliba heesadeeda sida aadka loo jeclaa haddaba Somali Week ayaa waxaa la soo gabagabayn doonaa dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee October amaba maalinta ugu dambaysa oo ah 31 bishan October sanadan 2010 Ibrahim Umar Baafe wararka Universal xarunta Somali Week Oxford House bariga London